بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal waxaan ku jirnaa bishii barakeysanaa fadliga badneed tobankii hore ee raxmada. walaalyaal waxaan ka hadlaynay fadliga bisha barakeysanaa ramadaan. maanta waxaan wax yar ka taabanaynaa fadlul qiraa'ati alqur'aan fi shahri ramadaan mubaarak, fadliga akhrinta quraanka ee bisha barakeysanaa ramadaan. walaalyaal quraanka akhrintiisa mar walba aad buu ajar badan yahay. ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkiisa weeyaan, kalaam rabbilcaalamiin. marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay, horta aayad quraan ku leeyahay shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaas. bisha barakeysan ee ramadaan ayaa quraanka la soo dejiyey, waa bishii quraanka la soo dejiyey ayuu ilaahay subxaana wa tacaala leeyahay. waa nabiga sal allahu alay wasallam malak jibriil kusoo dejiyey. waxaa weeyaan walaalayaal, waxaa ku jira bishaan hameen ka khayr badan kun hameen ka khayr badan oo yacni quraanka hameenkaas la soo dejiyey. inna anzalnaahu fi leylati alqadri wamaa adraaka maa leylatu alqadri. hameenkaas ayaa quraanka la soo dejiyey, nabiga sal allahu alay wasallam lagu soo dejiyey korkiisa. marka quraan akhrisku aad buu fadli badan yahay, wax la soo koobi karana maahan. nabiga sal allahu alay wasallam xadiid wuxuu ku yidhi, man qara'a qofka akhriya xarfan min kitaabillah falahu xasanatun walxasanatu bicashri amhaaliha. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. حديث كسنه صلى الله عليه وسلم وحكم شيء يا قرآن كفضل جيس يو أجر كليه لينو هذا فربليه هاي. النبي صلى الله عليه وسلم وحوليه هاي قفك آخر حرف كم قرآن ك وحوليه حسنة فله 10 حسنة، يعني 8 حسنة أيوليه، والحسنة ب10 أمثالها. halkii xasanana waxay ka dhigan tahay 10 laab ay ka dhigan tahay. marka la aqulu alif lam mim harf ma dhahayo nabiga sallallahu alayhi wasallam alif lam mim waa xarf, laakiin waxa la yahay alifun harfun wa laamun harfun wa mimun harfun. alifku waa xarf, mimkuna waa xarf, laamkuna waa xarf. sidaas waxay ku noqonayaan mid walba 10 xasano oo markii la isku daro 30 xasano ay tagayaan. marka aad iyo aad ayuu fadliga quraanka u fara badan yahay. wax la soo koobi karana maahan. inaan ku dadaalno bishaan barakeysan ee ramadaan akhrinta quraanka ayaan isku dardaarmaynaa walaalayaal. intaas ayaan maanta jeclaysanayna in la wadaagno. wixii aan qaladna waxay ka ahaatay naftayda iyo min shaydaan, wixii aan saxnana fa min allah ilaahay xaggiisa ay ka ahaadeen. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.